وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان أمد الصوماليين ميل كستا جوجتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام قيم بدن كدب وحن halkan idiga soo gudbinayaa xalqada labaad ee barnaamijka Hami iyo Horumar. xalqadii koobaad waxaan ku soo qaadanay rukni ama tiir ciwaankiisu uu ahaay hansare iyo halgan adag. hansare iyo halgan adag waxaan uga soo hadalnay qofka bini aadan inuu leeyahay si guul iyo uu gaaro horumar uu gaaro inuu hansare uu leeyahay. maanta waxaan halkan idiga soo gudbin doonaa xalqada labaad oo ciwaankeedu uu yahay ahdaaf qoran iyo qorshe cayiman. بمعنى قف كاستئر ربح نلاشة إنه هرمر بلارن جارو وإنه ليه هي وجدوين قرن يقرشة عد وجدوين كاس أنكو جاري. هدي أنت سأوصل هاي نلاشة نفر بدن يهون تجارية قف كاسنا ويأذكتهاي إنه نلاشة كجوليستو قف عن لهين ما ركت أهداف قرن يقرشة عيمن يمل وصعده أنجرنين ويأذكتهاي نلاشة إنه كجوليستو وحول مدي هاي مركب أما دون وين بدأ كجرا الناقضة عن لهين أو مل وصعده أنجرنين وحقوالتئة وقدام بيس وصعية إنه نجحوين كل عدونه ماشي عشان أو كبربري دونه سيصدرت هذا قف كاستخسي هرمر أو جاره وإنه ليه هي هدف قرن إنه ليه dad badan oo dunida ka tirsan waxa waaye ma yaqaanaan meesha u socdaan ma garanayaan wuxuu qabanayo mustaqbalka sidaas darteeda marar fara badan wuxuu isku dayayaa inuu horumar gaaro dream iyo riya ayuu ku jiriyaa horumar uu isku dayayaa markuu ku fashilmana wuu quusanayaa wuu niyad jabayaa wuu eetamayaa waa maxay sababtuna waa maxay because of malahan ujeedooyin qoran iyo qorshe cayiman uu ku gaarayo haba yaraada ma jiraan. so insaan kasto waa inuu leeyahay nolosha waa inuu leeyahay ujeedooyin qoran oo rabo nolosha inuu ku gaaro. dabcan ujeedooyinka midna waa ujeedo ballaaran oo ah midda ilaahay noo keenay koonkan subxaanahu wa tacaala. ilaahay koonkan wuxuu noo keenay inaan asiga caabudno wamaa khalaqtul jinna wal insa illa liyacbuduun. hada waa hadafka guud ee ilaahay noo abuuray subxaanahu wa tacaala. ama ahdaafta kale ee adduunka intaan joogno aan gaarna rabno annaga ayaa nagala doonayaa inaan degsanno oo aan samaysano oo hadaf aan leenahay. marka qofku markasta oo ujeedadiisu ay qoran tahay ay caddahay qorshahu ku gaari lahayna ay iyadoo tafaasiil u qoran tahay waa markasta oo nolosha guul ballaaran runtii uu ka gaaro. waxaa jiray 1950 jaamacadda Harvard ayaa waxay samaysay daraasad ay waxay ka qaaday 100 qof oo ardadeeda ah iyadoo rabta inay baaritaan ku samayso ilaa heerkee ujeedooyinku ay saameyn ku leeyihiin horumarka bini aadanka. boqolkii arday markay ka qaaday waxay weydiisay su'aal muhiim ah su'aashaasoo ah maxaad doonaysaa nolosha inaad gaarto. dhammaantood waxa waaye si ama aragtaa laa furan ayay waxay ku wada dhaheen dhammaanteen waxaan rabnaa inaan noqono milyan dheero waxaan rabnaa inaan ummadda saamayno waxaan rabnaa horumar baran in la gaarano. yacni qof kastaba waa iska jecel yahay horumar ballaaran inuu gaaro. waa sida مثلا dad badan marka weydiyo ay yiraahdaan waxaan rabaa nolosha inaan horumar gaaro. dabcan eragaas waa erey aad general u ah waa erey guud waaye oo u baahan inaad inta ka soo degto hoos u soo dhaadhacdo meel hoose aad timaado. jaamacaddii waxay ka qaaday 100 qofood. 100kii qofood su'aashaas markay wada weydiisay waxay dhaheen qof kasta inaan guulaysanaa rabnaa. 10% kamida oo ah 10 arday ama 10 qofood oo ardayda kamida waxay dhaheen annagu waxaan leenahay qorshe qoran iyo habkii aan ku gaari lahaynay ahdaaf qoran iyo habkii aan ku gaari lahaynay ayaan leenahay. isla jaamacaddii 10 sano kadib ayay researchkii iyo daraasadii ku celisay si uu ogaato 10kii qofood oo ujeedooyinka qoran lahaay iyo 90kii kale bal meesha ay kala marayaan. waxay ogaatay ama jaamacaddii soo saartay in 10kii qofood ay faa'iidayaan 96 boqolkiiba inta ay faa'iidi lahaayeen inta kale 4%na 90kii kale ayaa ku diriraya ama ku loolamaya. waa dhanka dhaqaalaha kaliya ay ka fiiriyeen bal fiiri ilaahay ugu dhaarshay habka ay leedahay ujeedooyinka qoran oo qofka bani aadana saameynta ay ku leeyihiin iyo meesha uu gaari karo. waxa xaqiiqo ah insaanku hadduu leeyahay ahdaaf qoran iyo qorshihii uu ku gaari lahay inuu dadka dhan ka hormarayo inuu dadka dhan ka waxaysmaayo ayaa la shaki ku jirin
oo runtii aad iyo aad u baahan waxaan barnaamijkan ama xalqadan ku soo gabagabaynayaa ama aan ku soo gunaanadayaa orahdii caanka ahayd oo dhahaysa idaa lam tukhadid lixayaatika فأنت من ضمن مخططات الآخرين هذا أدوه نوش قرشيسان وحاد كبيريسا قرشياشا ضدك كلا إليهين وحقيقة هذه أديك أو حقوق حنين أو ما أنت وحا كمان يسو أسبوع وحا كمان يسو بش وحا بالصوص وحا كمان يسو سنة كصوص وحا كمان يسو وحا صوت لن هذا يسمى فوق قرشيسنين وحاد مقنيسا قرشياشا ضدك كلا أيات كبيريسا مركب ما أنت وحا ليجينا نكين حفلة آدينا نكين لينا تجينا نكين ماشي هبلا إسكس معركة الدماشات تجينا كان قحول إسكسو في تلفوننا lagu soo diranaya dadka kale qorshayaashoodii ayaa ka mid noqonaysa si arintaas aad uga badbaado walaal nolosha hadda ka bilaaw inaad wax qorshaysato si u qorshaysan karaa su'aal waxa imaanaysa marka si wax loo qorshayn karaa waxaan rabaa inaan ku siiyo si kooban inaad isticmaasho qalin iyo buug haddii aad haysato inaad soo qaadato waxaa jira 6 talaabo oo la qaado 6daas talaabo haddii aad qaado waxaa noqonaysaa qof hawshiisu ay isku toosantahay talaabada koowaad waxaa samaysaa marka hore go'aanso waxa aad rabto nolosha inaad gaarto waa shardiga koowaad ee ugu horeeya intaad wax kala samayn bal go'aanso maxaa rabtaa maxaa doonaysaa nolosha inaad ka qabato maxay yihiin waxa aad rabto go'aan ka gaar isteedka labaad ama talaabada labaad maxaa samaynaysaa qor dhammaan ujeedooyinka nolosha aad rabto inaad gaarto ujeedooyinka nolosha aad rabto way ballaaran karaan noloshu waxay leedahay dhinacyo kala duwan ayay leedahay waxaa laga yaabaa dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda dhinaca dacwada iyo diinta iyo dad bini'aadamka inuu fidiyo dhanka qoyska dhanka ruuxiga iyo maaragta ku xirnaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala dhinacyadaas oo dhan waxay kaaga baahan yihiin in ujeedooyinkooda aad qorto marka talaabada koowaad maxaa ka dhignaa inaad go'aansato waxaad rabto talaabada labaadna waxa waaye inaad qorto dhammaan ujeedooyinka aad leedahay talaabada saddexaad waxa waaye waxaad u samaysaa deadline ama aad go'aamisaa hadaf kasta ee aad rabto nolosha waqti u samay adduunka wax aan waqti lahayn waxay iska naqanayaan macno darro ayay naqanayaan soo waqti u samay waqtiga aad ku qabanayso waqtigaasna realistic ha noqdo wax la yiraahdo smart goals ayaa jira oo la raaco oo aad heli karto meel kasta aad ka heli karto marka ujeedadaasu waa inaad u samayso waqti aad ku samaynayso ujeedo kale hadday tahay maalin hadday tahay usbuuc hadday bil tahay hadday sano tahay hadday 5 sano tahay hadday 10 sano tahay hadday 20 sano ay tahay wax allaale waxaad ku qaban karto waa inaad waqti ay ku leedahay waxaan aad ku qaban karto waa inaad samayso waxaan maraynaa talaabada saddexaad ayaa maraynaa talaabada afaraad waxaa liis garaysaa dhammaan wax allaale wixii kuu suurta gelinaya inaad ujeedooyinkii aan soo sheegnay aad gaarto mararka qaarkood waxaad gaari ujeedooyin waaweyn ujeedooyinkaas waxay kaaga xiran yihiin waxyaabo fara badan oo kaaga xiran yihiin mesela haddii kaaga xiran tahay inaad calaaqaad iyo xiriir aad samayso calaaqaadka xiriirka samay haddii ujeedada kaaga xiran tahay inaad gaarto haddii ay kaaga xiran tahay mesela inaad maal iyo dhaqaale aad samayso maalkiiyo dhaqaaladiisa ku samayn lahayd ama sida dad kale aad uga heli lahayd oo maalgelin ah raadi haddii kaaga xiran tahay skiilkaaga iyo xirfadaada oo kordhiso كردي حرفة هذا كردي هذا مثلا مركي عاد قرش الله سمينايو أما قرش الله سمينايو وحادي عاد قلت لنا يا إن قادتان تببر عوان كيسو يهاي personal strategic plan قرشها فك شخصي قا قف كستوى إنه قاطو لبما مع الموضوع لقي إنه سوكوا أما أقبلنا أسبوع أيو سعرية نولش هذا أو دم واحد قبصله هذا أيا كبرنا يساقبك أقرشي له بعد طبعا كلب كاير كوما في إن البرنامج كان سمايسو مركي قرب طلابنا أفراد محنا هنا واحد كستو ee ku suurta gelinaya ujeedooyinkaada inaad gaarto samay haddii مثلا aad rabto inaad dadka saamayso oo saameyn xoog leh dadka aad ku yeelato maxaad u baahan tahay skill-ka la yiraahdo ama xirfadda la yiraahdo public speaking inaad barato qof aan public speaking aqoon ama fasaaxo lahayn bulsho ma qancin karo idan wax kasto oo ujeedooyinkaaga ku gaarsiinaya ama geyn kara waa inaad qaadataa aad iyo aad ay runtii muhiim u tahay marka barnaamijkaas la joogo ama waxaas la samaynayo waxaan joognaa talaabadii afraad talaabada shanaad waa maxay ujeedooyinkii aan soo sheegnay dhan iyo liiskii aan soo qornay inaad nidaamiso oo aad u bedesho action plan ficil wax la samayn karo oo qoran inaad u diyaariso markaasna step-ka lixaad ama talaabada lixaad waxay noqotay implementation inaad fuliso ayay noqonaysaa oo barnaamijkaagii runtii aad iyo aad u fuliso walaalayaal hadaf qofka inuu leeyahay
uuna leeyahay qorshe qoran oo hadafkiisa uu ku gaarayo waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn dunida oo qofka horumarka uu ku gaaro guul ballaaranna runtii uu ku gaaro guushaasna waad gaari kartaa adiga ayay kaaga xiran tahay fadlan dhaqaaq يعني أهدافها قرو قرشة سمي نلاشنا إن شاء الله تعالى وجولسنيسا وأستاذ مسعود وهلية وإدير رجينا ينال راحلة رات في عن يرهال عاشها إيبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحيق ولا العنب إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما